kulanti wacan wanaagsan guud ahaanba kheerta hawada nagala xidhiidhay dalka Senegal ee dhaca galbeedka Afrika waxaa ka dhacday doorasho hadalhayn weyn ka dhalisay dunida. doorashadaasi ayaa waxaa ku soo baxay wiil dhalinyaro ah oo muddo dheer xabsi ku jiray, kaasoo muddo 10 cisho ka hor xabsiga ka soo baxay intuusan ku guuleysan kursiga ugu sareeya dalkaasi Senegal. haddaba waxa ila sugan Isxaaq Ukashe oo inta badan falanqeeya Afrika, bariga dhexe iyo waliba dunida waxyaabaha ka soo cusboonaada. Isxaaq soo dhawow marka hore. waa kuma dalkan iyo madaxweynaha cusub ee dunida hadalhaynta badan ka dhaliyay. mahadsantahay Xamse Xadaari saaxiibaan. sidaas sheegtay dalkani waa Senegal, wuxuu dhacaa galbeedka Afrika. hadalhaynta imika ka taagan waa dareemaysaa, dunidu aad bay u hadalhaysaa. doorashadaas ka dhacday oo runtii saameyn badan dhalisay, dunidana waxa weeyaan aad looga hadalhayo, taariikhdana gashay. marka dalkaas Senegal baa la yiraahdaa galbeedka Afrika u dhaca. 97% bulshadaasi waa islaam ama waa muslimiin. waxa weeyaan waa dad aad ma garanaysaa ay xadaariyiin u ah. waxaa la sheegaa in Senegal ay kamid tahay dalalka ugu xasiloon galbeedka Afrika. doorashadan ka dhacday imika madaxweynahaas waxa weeyaan xilka la wareegay Bassirou Diomaye Faye baa la yiraahdaa, ama wuxuu ku magac dheer yahay Master Clean. magaciisa soo gaaban waxaa la yiraahdaa PDF. waa nin yaro dhalinyaro 44 jira. waxa weeyaan doorashada wuxuu ka qayb galay maalintii dhaweyd ka dhacday dalka Senegal. madaxweynaha uu la tartamayay waa ninkii hore u haystay oo doonayay inuu xilka sii dheeraysto, balse waxa weeyaan maxkamadda dastuuriga ah dalkaasi awoodiisa ay laashay oo ay la xisaabtantay ninkaas. marka dalkaas waa dalkaas wuxuu dhashay 25 Maarso 1980. ilaahay amarkiina wuxuu ku guuleystay doorashada 26 Maarso 2024. marka ninkaas waa dhaqaalayahan iyo sharci yaqaan. waxa weeyaan aad ugu ololeyn jiray inuu dalkaas wax ka bedeli doono. 10 cisho kadib xadisiideyntiisana waxa weeyaan ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaas. doorasho caynkii ah baa ka dhacday dalkaasi Senegal. Isxaaqo, waxa ka dhacday doorasho la isweydiin doono, taariikhdana gali doonta. Afrika wada ogtahay meelo badan waxaa haysta kaliya taliyaal ama rag muddo 40 sano ah ka talinaya. tan waxay bedelaysaa bal leeyahay marka dimuqraadiyadii waxa weeyaan Afrika iyo habkii la isu dooran jiray. doorashada ka dhacdayna waxa weeyaan waa doorasho da'yarta Senegal, maadaama Afrika oo dhan la leeyahay waxa weeyaan 80% waa dhalinyaro. Senegal dadka ku nool ee waliba dhalinyarada waxay rajeynayeen isbedel bay rajeynayeen. wuxuu sameyn doonaa ama waxa weeyaan uu ku ololeynay ninkan yar inuu isbedel sameyn doono, dhaqaalaha dalka wax ka bedeli doono maadaama uu dhaqaalayahan yahay, sidoo kalena ku tiirsanaanta dalalka reer galbeedka uu meesha ka saari doono. marka doorashada cajiibka ah baa ka dhacday, ninkan yar baa ku guuleystay. iminkana isaga madaxweyne ka ah, waana madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dalka Senegal xukunka ka qabta. qaaradda Afrikana uu soo gelayaa madaxweynayaasha ugu da'da yar ee xukun qabtay. waa tahay saaqe sidee doorashadaas ku dhacday maadaama dalka Senegal inuu ka warqabno inay qalalaas gudaha dalkiisa ka jirto? waa run Xamse, bilooyin badan waxa ka jiray dalka Senegal qalalaas aad u daba dheeraaday, mararka qaarna sababay mudaharaadyo. waxa weeyaan doorashadan waxay u dhacday hab ka duwan hababka kale ee qaaradda Afrika uga dhacaan doorashooyinka. way ogtahay maxkamadda dastuuriga ah meelaha qaar ma madax banaana oo madaxweynaha gacanta ku haya ama magacaaba cidda hogaaminaysa. laakiin dalkan Senegal hay'adaas way madax banaan tahay, waana tasahashay suurto gelisay in doorasho laga qabto dalkaas. damci madaxweynahaasna waxa weeyaan meesha laga saaro. marka maxkamadaas ilaahay u soo diray. waayay ugu dambeyn maxaanu ka baran karnaa bal oran karaa doorashada ka dhacday dalka Senegal? Xamse, waxaan ka baran karnaa in maadaama 40 ama 30 qofka haddii uu soo gaaro xil qaban karo, in waxa weeyaan sheekooyinka ah dhalinyaradu waxba ma qaban karto meesha ay ka baxdo. waxaanu ka baran karnaa in dhalinyaradeenu isharixi karto guud ahaan qaaradda Afrika. waxyaabaha ku ololeynayna waxaa kamid ah ninkan yar imika la doortay oo aad runtii waxa weeyaan dareenka dunida u soo jiitay. waxyaabaha ku ololeynaya waxaa kamid ahayd in uu meesha ka saari doono waxa weeyaan dawladnimadan ku tiirsan reer galbeedka waxa weeyaan qoodanaysa. marka waxaanu ka baran karnaa Xamse hadalka kooban in garanaysa ay isbedelku aanu ku xirnayn jiilasha waaweyn, isbedelku mararka qaar ku xiran yahay da'yarta. marka intaasna ka baran karnaa.
waayahay Isxaaq Waashe aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa falanqaynta kooban ee aanu idinka soo gudbinay doorashadii ka dhacday dalka Senegal ee dunida hadal inta badan ka dhalisay tan iyo kulantan dambe waa aniga Isxaaq Waashe oo idin leh nabaday.